صدق يا طبعا كاسن ونمان كي عصنا نول بهبل كيسيبا لو قرني كان هو محمد بسي كان هو عبد الله جود عبد كان هو محمد شيخ مختار كان هو عبد الرحمن ديري ودعده عبره qaadasho leh dad badan ay wali hadal hayaan deegaanka Soomaalida gaar ahaan degmada Dhagaxbuur qisada warbixintan waxay sal u tahay afar nin oo ka tirsanaa jabhadda xoreynta ee ONLF oo muddo iminka laga joogo 13 sano ka hor ku dhintay deegaanka Isdabadeg ayaa dib loo soo faagay xabaashi ay ku jireen markii la arkay in xabaashu ay duntay si dib loogu aaso hase yeeshee mucjisadan ayaa lagala kulmay meydka waxaase sharaxaya maxamed ani oo ka tirsan ururka ONLF kana hadlaya meydka oo dib loogu aasay Dhagaxbuur magacyadoodii iyo mucjisooyinka lagu arkay bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Guuleed wicitaankan aad soo wacdeen wareysigana waad ku mahadsantihiin waxaana salaamayaa dhammaan bulshada laga yaabo in ay dhageysato salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxa weeyaan 2009 bishii labaad 2009 laga bilaabayaa ilaa iyo hadda marka waa 13 sano oo 2 bilood ka maqan tahay intay godka ku jireen afartan naftiwada waxay joogeen meel Isdabadeg la yiraahdo halkaas ay arrin dad isku dhacay bay kala xalinayeen ciidan yar oo kooban oo ay ugu tala galeen inay odayaashaas soo raaceen oo inay wax xaliyaan bay meesha u yimaadeen halkaas bay geeridii iyo shilku ka dhacay cadawgii ay la dagaalamayeen baa xogteedii helay dagaalku halkaas ka dhacay dad kala yar bay ahaayeen oo madax oo soo urursaday khilaafka dartii meesha isugu yimid siday ku shiideen asaas ay wana geeri xaq ah oo tii la sugayay bay ahaayeen dhamaantood waxay ka tirsanaayeen jabhadda ONLF Soomaha مسؤولين توصل رئيس أورك عين عبد الله جود عبد الجلال عبد أورك وها حرمتونا كسعودي محمد بسي وحكي الدبادة كل كورونا طلية قيبات دي مكملها عبد محمد شيخ مختار وها طلية قيبت اللي جود الشهيري كدجال كده عيلفتي وحيستوي حكومي ساس بيان صدقا أفرتان إنك يركا كلنا هذا ما أقول مستقبل مركا أفرتان إنه كتير سنة جمهدا waxa markii dilkooda ama inay dhintaan ama shahiidaan waxa dilay Soomaha ciidanka Itoobiya halkaas dagaal ku dhaxmaray waxa dilay ciidan military ah oo ka soo baxay Dhagaxbuur waxay joogeen meesha la yiraahdo Isdabadeg korkeeday joogeen dadka kale meel isma khadar la yiraahdo ciidanka Itoobiyan ku degay military-gii buu ahaa sanafarkii diiradiisa ku fiiriyeen waxay arkeen labada nin ee waardiga ee buurta kor saaran halkaas ku soo hawl qaybsadeen xabadu iyadoo waardigu una arag bay xagga dambe ee madaxda fadhiday ka bilaabantay waana la sheegayaa dad kale oo wax ka sheegayna waa la sheegaa laakiin sida rasmiga ah inuu ognahay waxa weeyaan sidaas waa inuu ciidanka military-gii dilay una soo hawl qaybsadeen markay dadka kale ay ka arkeen sanafarkii ku arkeen saas oo dagaal ku biloomay dagaal ballaaran buu ahaa oo waxa weeyaan iyadana wajah badan loogu geystay laakiin ay afartan naftuure qaariga inay meesha kaga baxaan marka meesha lagu aasay ku dhinteen Soomaha meesha kuwaas waxa lagu aasay Isdabadeg agteeda meela waxa lagu aasay xurfad yar oo aan sidaas u weynayn duruuftuna ma saamaxaynin in mataqaanaa in badan godka la dheereeyo ama xabaal askaran oo fiican loo sameeyo sababta dadku waa cabsanayay ninkii dilay kama fogeyn dadkuna cabsi bay ku noolaayeen oo dadka xilliga waxba lama aasi jirin god yar baa loo faarfaaray halkaas ay ku jireen nasiiboonaag ayaanta dhaweyd baa loo kacay waxa uu kacay dad baa soo saaray maxaa dhaliyay in meedka meeshii laga soo saaray hore loogu aasay waxa dhaliyay xabaashi baa duntay xabaashaan ahayn xabaal laga fiirsaday oo fiican oo si fiican loo aasay ma ahayn waxay dadkii aasay waxay qariyeen jiirkooda iyo hilibkooda iyo meydkooda un bay qariyeen laakiin awood ma ayna u lahayn inay waxayaan inay aasaan oo aas fiican aasaan xabaashii baa duntay markii la ogaaday in xabaashu duunsan tahay dadkii deegaanka joogay baa soo qariyay oo yidhi nimankii xabaashoodu way duunsan tahay dadkii baa is urursaday saasaana loogu tagay xabaal ma ahayn meel la faarfaaray oo imikana duntay baa inoo dayacantay marka waxaa la go'aansaday in dib loo aaso naftooriyaasha xabaashooda dib loo habeeyo marka saas ahayd xabaal mayna ahayn meeshii hogga ay lagu hogeeyay oo duntay oo dayacantay darteed baa loo soo saaray 13 sano in ku dhow baa ka soo wareegtay marka laga soo saaray meeshii hogga ahayd hore loogu xabaalay marka bal arintan mucjisada ee dhacday ee dadka deegaanka iyo guud ahaan Soomaalidu xoog badan aysan ka haynin waxa weeyaan
maxa adigu ma kamid ahay dadkii ka qayb galay aaskooda maxay saahayd waxa mucjisada aad ku aragtay anigu aaska waan ka qayb galay waxa weeyaan arrin aad u la yaabay anigu laakiin lama yaabanayn Cabdullaahi raggaana qaanay waxa weeyaan mujaahidiin bay ahaayeen waxa la soo saaray horta waa la iga horreeyay anigu oo dad baa soo saaray dadkaasi waxay sheegeen koow in horta dhiiggii muuqdaba dhiiggii ay xabadii ku dhacday dhiiggii inay muuqdeen laba wiil oo naftuura oo raan lahaa Cabdiraxmaan iyo ninka Maxamed Sheekh Muxtaar labadaba raantii baa ku yaalay Maxamed Basay garkii baa sidii ugu yaalay hal mid oo isbedelay 13 sano nimankii aasnaa nin walba hebelkiisii baa loo garanayay kani waa Maxamed Basay kana waa Cabdullaahi Guud Cabdi kana waa Maxamed Sheekh Muxtaar kana waa Cabdiraxmaan Dheere afartoodii oo isku qasnayn oo mid walba midabkiisii iyo shaqligiisii wata kaliya waxa nafti ka maqnayd nafta uma ka maqnayd anigu waxaan ahay dadkii xabaasha sii diyaarinayay markii la keenay waxaan ku tala gashanaa xabaal dad lafo 13 sano la waxeeyay laakiin mid walba isagoo jurmigiisii wata oo waxa weeyaan nin walba dhowr iyo 10 nin daabada hayso oo la hayo oo ayuuna dhicina meedka hayi mu yarigay xataa culayskiisa ma ayn kare la leeyahay oo kala yaalo waxa weeyaan meed suba baro oo imika dhinta weeg oo kafankii buuxiyay baanaga noo yimid anagu meed mananaas meed waxa weeyaan dad waa hore shahiiday ma ahayn sida uu muuqatay meed uu maanta inuu gooya aadmoodi baan yaa noo yimid dhiigii baa ku yaalay timihii baa ku yaalay midabkoodii baan isbedelin jiirkoodii iyo xooggoodii iyo culayskoodii iyo miisaankoodii baan isbedelin wax iska bedelay oo kaliya wax ka maqnaa naftii bas ka maqnay inay shalay dhinteen baan moodayay arrintaasi marka cibro ahaan dadkii deegaanka ama dadkii ni'aasayay cibro ahaan arrintaasi seeba idin la noqotay arrintaasi daarin dadkii ururka dhaliilay wax ka sheegayeen arrin majhuusa ay ku noqotay maanta garowsadeen annagu laakiin waan ka filaynay inay sidan inay mujaahidiin xaq ahaayeen oo dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintooda u sheegay si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran fadlan follow garee oo ku xidhnow Shakaal TV